vocabulary waxay noqonayaan erey cusub. Vocabulary waxay noqonayaan vocabulary waxay noqonayaan erey cusub ama new words out qanan. Lesson 16 cashirka 16 words erayo relating to la xiriira politics siyasadaha. Okay, ereyga ugu horeeya hadaan soo qaadano number 1 waxaan ugu xusan new words ka asleenahay maadaama uu yahay sida compound noun oo kale oo laba erey isu wataan uu yahay laakiin erey ahaan u baahan mar u tafsiirnayna. Okay, number 1 waxa ku xusan civil society waxay noqonaysaa bulshada rayidka. Civil society waxay noqonaysaa bulshada rayidka. Okay, haddii aan ka bixin example yar hadaan ka bixin oo aad u gaaban waxaan dhihi karnaa the civil society helps people. Bulshada rayidka dadka ay caawisaa ama bulshada rayidka waxay caawisaa dadka ay caawisaa ayaan dhihi karnaa. Okay, number 2 maxaa ugu xusan? Number 2 waxa ku xusan SAFA waxay noqonaysaa dhibaato ama cabasho qof wax ka cabanayo kaleeto ama waxa la kulantay dhibaato la kulanto kaleeto ayaa la kira SAFA ayaa la kira. Sala kaleeto example la soo qaadan waxaan dhihi karnaa he suffers asira ku darnay SAFA isa ku darnay waxaan dhihi karnaa he suffers from a cold wuxuu ka cawdaa hergeb ama qabow waa hergeb noqonaysaa. Okay, number 3 waxaan ugu xusan acknowledge waxay noqonaysaa aqoonsasho kaleeto ayaa loo adeegsan karaa ama waxaa loo adeegsan karaa tusaale kaleeto qirid waxa qirinayso kaleeto ayaa loo adeegsan karaa oo kaleeto. Okay, example yar oo gaaban hadda soo qaadan waxaan dhihi karnaa she acknowledged her mistake waxay qiratay khaladkeeda. She acknowledged her mistake waxay qiratay khaladkeeda ayaan dhihi karnaa. Okay, 4 maxaa ku xusan face to face ayaa ku xusan. Face to face luqad Soomaaliga waxaan dhihi karnaa weji ka weji ama fool ka fool ayaan dhihi karnaa. Weji ka weji ama fool ka fool. Example hadaan soo qaadan waxaan dhihi karnaa example aad u gaaban we talked face to face waxaan u wada hadalnay fool ka fool ama weji ka weji ayaan u wada hadalnay ayaa dhihi kartaa. Number 5 hadaan soo qaadan waxaan ugu xusan ground troops waxay noqonaysaa ciidamada dhulka aan dhihi karnaa ama ciidamada socodka ciidamada lugta oo kale ayaan dhihi karnaa ciidamada lugta ciidamada dhulka ciidamada socodka dhulka ku socdo ayagoo gaari wato ciidamada dhulka ayaa dhihi karaa. Okay, example hadda usoo qaadan example aad ogaan waxaan dhihi karnaa oo kale ground troops entered the city ciidamada lugta ama ciidamada dhulka ayaa soo galay ama way galeen magaalada. Ciidamada dhulka ayaa galay magaalada ayaa dhihi kartaa. Ground troops entered the city ciidamada dhulka ayaa galay magaalada. Okay, number 6 maxaa ugu xusan 6 okay 6 waxaan ugu xusan ama number 6 waxaan ugu xusan ceasefire waxay noqonaysaa xabad joojin. Example gaaban hadda usoo qaadano waxaan dhihi karnaa the two countries agreed to a ceasefire. Labada dal waxay ku heshiiyeen xabad joojin. Ceasefire saaro usoo sheegnay xabad joojin. Okay, number 7 executive committee meeshaan executive yaa lagu dhawaaqin ama executive ayaan la aqrin executive ayaan leenahay executive committee ayaan leenahay example gaaban hadda usoo qaadan waxaan dhihi karnaa executive committee luqad Soomaaliya waxay noqonaysaa guddiga fulinta ayaan dhihi karnaa guddiga fulinta. يعني هول وحبة لودي وخوش قبنا سيتاي أي أقصى بحيان وجودي أنت مال فريستان واحد جينا وحبة قبنا يعني واحد لودي هو سيتاي أفليان هذه جودي قفل أنت. Okay, example تأسوق أنا عني كنا the executive committee
guddiga fulinta waa ay kulmeen shalayto. The executive committee met yesterday. guddiga fulinta waa ay kulmeen shalayto. Okay, number 8 maxaa noogu xusan? 8 waxaa ku xusan Minister of Finance. Minister of Finance. Finance lama dhahay meeshaan. Finance man and finance ayaa noqonayna. Finance. Minister of Finance maxay noqonaysaa marka? waa wasiirka maaliyadda, yani wasiirka oo dhanka lacagta u xilsaaran ee dalka maaliyadda, dhanka maalka waxaas ayuu kala maareeyaa, u kala dhigaa wax maal wax soo galaya dalka maaliyadda, wax soo galaya waxaas ninka u xilsaaran ayaa maxaa la Minister of Finance, wasiirka maaliyadda. Example gaan hadda soo qaadana hadii karna the Minister of Finance announced a new budget. wasiirka maaliyadda ayaa ku dhawaaqay miisaaniyad cusub. budget waa miisaaniyad, macnaha waxa meesha ku bixi lahaa budgetka waxa ku bixi lahaa budget dad Soomaalidu budget iska dhigi karaan. budget cusub ayuu ku dhawaaqay dhigtaa. budgetna maxaa waaye sida wax u kala maareyn lacagtada meesha waxa ku bixin lahayd sheegan waxaas waa sheegan intaas waaye waxa adiga meesha wax u kala maareyn lahayd ayaa la budget. English xanina budget ayana budget. The Minister of Finance announced a new budget. wasiirka maaliyadda ayaa ku dhawaaqay miisaaniyad cusub ama budget cusub ayuu ku dhawaaqay. Okay, number 9 waxaan leenahay Minister of Internal Affairs. Minister of Internal Affairs. Okay, luqad Soomaaliga waxaa dhihi karnaa wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha gudaha. Minister of Internal Affairs wuxuu noqonayaa wasiirka arrimaha gudaha. Example hadda soo qaadana waxaa dhihi karnaa the Minister of Internal Affairs visited the police. wasiirka arrimaha gudaha ayaa booqday booliska. The Minister of Internal Affairs visited the police. wasiirka arrimaha gudaha ayaa booqday booliska ayuu booqday. Number 10 ruling party ayaa noogu xusan. ruling party luqad Soomaaliga waxay noqonaysaa xisbiga markaa talada haya ee dawladda hogaaminaya ee maxaa la ruling party. xisbiga yani hogaaminaya dawladda oo markaas ay kursi ku fadhiya madaxweynahooda ayaa ruling party la dhahaa. Opposition maxaa la mucaaradka. Opposition waxay noqonaysaa mucaarad. kuwan waa ruling party, kuwa markaa ay kursi ku fadhiya ee talada haya ayaa maxaa la ruling party ay noqonaysaa. ruling party. Example hadda soo qaadana waxaan dhihi karnaa example yar oo ku saabsan ruling party hadda soo qaadana waxaan dhihi karnaa the ruling party won the elections. xisbiga talada haya ayaa ku guuleystay doorashooyinka. The ruling party won the elections ama the election hadii kartaa xisbiga talada haya ayaa ku guuleystay doorashada ama elections taadaan waa doorashooyinka ay noqonaysaa. Number 11 waxaa ku xusan opposition party. waa mid hadda aan sheegay opposition party waxay noqonaysaa kuwa ka soo horjeedo kale. Opposition party waxay noqonaysaa kuwa ka soo horjeedo ruling party. kuwa ka soo horjeeda ayaa maxaa la opposition party. su'aalo kale waxaa dhihi kartaa the opposition party are competing for the election. The opposition party are competing for the election. xisbiga mucaaradka waxay u tartamayaan doorashada. Opposition party waa xisbiga mucaaradka. The opposition party are competing for the election. xisbiga mucaaradka waxay u tartamayaan doorashada ayaa dhihi kartaa. Okay, to alaf maxaa noogu xusan? waxaa noogu xusan Minister of Foreign Affairs. Minister of Foreign Affairs aan leenahay. waa Minister of Foreign Affairs waxay noqonaysaa wasiirka arrimaha dibadda ayaan dhihi karnaa. Minister of Foreign Affairs waxaan dhihi karnaa wasiirka arrimaha dibadda ayaan dhihi karnaa. waa wasiirka oo dalka banaankiisa yani wax ka maamulaya aadayo arrimaha wixii dalka banaanka looga baahnaa asagaa badanaa qabanaya. waa Minister of Foreign Affairs, dalalka shisheeye ayuu la macaamulaa. Okay, example yar haddaan soo qaadana waxaan dhihi karnaa kaleeto the Minister of Foreign Affairs met ambassadors. wasiirka arrimaha dibadda ayaa la kulmay safiirada. Ambassador waa safiir, ambassadors waa safiiro. safiirada dalal kale u fadhiyo
dalka Soomaaliya kaleeto waxaa jira safiiro u fadhiyo dalalka shisheeye sida Kenya safiir ayaa u fadhiyo, Ethiopia safiir ayaa u fadhiyo, Mareykanka safiir ayaa u fadhiyo, Ghana safiir ayaa u fadhiyo, Brazil safiir ayaa u fadhiyo, sidaas oo kaleeto noqonaysa. So Minister of Foreign Affairs wuxuu noqonayaa wasiirka arrimaha dibadda. Example soo qaadan waxaan aanay the Minister of Foreign Affairs met ambassadors. Wasiirka arrimaha dibadda wuxuu la kulmay safiirada ama ambassadorada, waxa dhahay safiirada ama ambassadorada ay la kulmay. Okay, number 13 waxaa noogu xusan Minister of Youth, Minister of Youth and Sports, Minister of Youth and Sports, Minister of Youth and Sports ay noqonaysaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa xalaa Minister of Youth and Sports. Example soo qaadan the Minister of Youth and Sports opened ayaa leenahay opened a new stadium, yani wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa furay garoon cusub. The Minister of Youth and Sports opened a new stadium. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa furay garoon cusub ayaan leenahay. Okay, 13 maxaa noogu xusan marka 13 aan dhihin 14 maxaa noogu xusan. Now we are 13 aan joognaa. 14 maxaa noogu xusan. 14 waxaa noogu xusan Minister of Energy, Minister of Energy ayaa noogu xusan. Okay, Minister of Energy maxay noqonaysaa? Waa wasiirka tamarta. Tamar maxaa waxa dalka uu soo saaro, waxa dalka ka soo baxay ayaa maxaa la tamar ayaa la waxa dalka ka soo baxay. dalka maxaa jira waxyaabo fara badan oo dalka soo baxana jira. So waxaas maxay noqonaysaa Minister of Energy wuxuu xisaabinayaa tamar dalka soo baxay sida shidaalka, saliida, gaaska dalka soo baxayo kaleeto, waxyaabahaas oo kaleeto ay u xisaaran yahay. Waxa dalka soo baxay ama dhulka laga qodo kaleeto ka soo baxay asaga u xisaaran. Example soo qaadan oo ku saabsan Minister of Energy wasiirka tamarta. Hada soo qaadan example yar oo kooban waxaan dhigi karnaa the Minister of Energy announced a solar project. Wasiirka tamarta ayaa ku dhawaaqay mashruuc qoraxda ah. Solar maxaa waaye dhanka qoraxda marka la adeegsanayo dab laga dhilinayo la solar. Okay, hataa korontada oo dalka la siiyo hataa maxaa xisaaran wasiirka tamarta ayaa xisaaran. Sida solar hadii dalka la keeno oo loo kaleeto motorka ka guureyna solar u guureyna hadii loo kaleeto ninkaas ka hadlayo. Soolaraha iyo korontada dalka ay gashay ka soo baxday iyo wax dalka waxaas asaga u xisaaran wasiirka tamarta ayaa la weydiin. Shidaalka dalka soo galaya kaleeto shidaalka dhulka laga qodayo kaleeto waxyaabahaas asaga la weydiin. So Minister of Energy wasiirka tamarta. Example soo qaadan xanaanay the Minister of Energy announced a new solar project. Wasiirka tamarta ayaa ku dhawaaqay mashruuc qoraxda ah dhanka solarka qoraxda ileen solarka lagu sheegay qoraxda ayuu dadka dhaliyaa. So sidoo noqonaysa. Okay, now 15 maxaa noo xusan transitional government. Okay, transitional government maxay noqonaysaa? Waa dawlad ku meel gaar ay noqonaysaa. Transitional government ay noqonaysaa dawlad ku meel gaar ay noqonaysaa. Hada example soo qaadano the country wadanka was ruled by waxa xukumay ama hogaaminayay a transitional government dawlad ku meel gaar. The country was ruled by a transitional government. Dalka waxa maamulayay ama hogaaminayay dawlad ku meel gaar. The country was ruled by a transitional government. Waxaan noqonaysaa dalka waxa maamulayay ama hogaaminayay dawlad ku meel gaar ayaa maamulaysay ama